السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تسود هذا ما أنت واحد يسوق الدنيا حق صابسا قرح داره متانا أمريكا قرح داره متانا أمريكا وحاي دعين كويتونكي سبتمبر لبدي يكون يكودي dhacdadaas oo dadkii wax u darisi jiray ay laba qayb ka dhigeen qaybta koowaad waa in qarxinta goobtaas ay ahayd mid qorshaysan oo mar hore la diyaariyay dalcadow ku ahna ay qorshahaas ka soo fuleen qaybta labaadna waa inay ku lug leeyihiin rag ka tirsan xukuumadda Mareykanka kadib weerarkii daarihii mataanaha saraas oo ahaa xarun lagu ganacsan jiray iyo xarun ay ku lahayd wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagon waxaa dhacday in su'aalo la iska weydiiyo dhacdadan waxaan u kacay rag mutadawiciin ah si ay dhacdadan gunteeda hoose u soo taabtaan cidda ka dambaysay iyo cidda qorshaysay iyo cidda fulisay iyo su'aalo kale inay ka warkeenaan waxaa cadaaday dhacdadan inay tahay shaqool ay gacmo badan ku jiraan ma muuqan aragtida shirqoolka ee la ogaaday ilaa qarxi kadib qayb aragtida ka mid ah ayaa raggii baarayay xujooyin ka qaateen iyagoo aragti fog wax ku eegaya intaas kadib waxaa ku soo biiray rag kale oo u carbisan kala furdaaminta xujooyinka qarsoon waxaa faaftay aragtida shirqoolka dacsoon oo wargeysanay Mareykanku soo dabayaacayaan waa waxa ka dhigay in xukuumadda Mareykanku ay reebto aragtidan iyadoo ku andacoonaysa qolaysi xukuumadeed lagana qaatay weerahan qolaysiga xukuumadeed ah afka madaxweynihii markaas ee George Bush 2004 waxaa lahaynteedu u batay aragtida shirqoolka gaar ahaan markii la qabsaday dalka Ciraaq muddadii labaad ee Bush madaxweyne ahaa waxay u qaybsantay tafsiiradii laga bixiyay dhacdadan dhowr qaybood xujooyinka ugu culusna waxaa ka mid ah waxay dejisay khidad ururka difaaca ee raacsisan ciidamada Mareykanka 2 sano ka hor dhicitaankii dhacdada qaraxa saraha mataanaha naqshad ah garaaca labada dabaq ee ganacsiga iyo dhismaha madaxweynaha Pentagon waxaana jiray dabagal baariseed ee lagu hayay ururkaas maalinkii weeraradu ay dhaceen sanadku markuu ahaa 2000 inta uusan maamulka la wareegin Bush waxaa soo baxay dacwado ah in la soo celiyo koox fikirka weerar ah dabcan waa ideolojiga ama duulaan maskaxeedka kooxda u qaabilsan dalka Mareykanka kooxdaas oo wadatay mashruuc la yiraahdo mashruuca qarniga ee Ameerikada cusub raggii uu fikirka ku hawlgeli jiray ee kooxdaas ka tirsanaa waxaa ka mid ah Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush, Paul Loveless iyadoo dib u soo celinteedii kooxdan loo bixiyay kooxda dib u dhisidda difaaca ee Ameerika sida sanadkaas ee 2000 wuxuu Pentagon bilaabay mashruuciisa weynaa uguna wanqalay Maskal waxay fuliyeen raggii mashruuca loo xilsaaray in diyaarad nooceedu yahay Boeing 757 ay ku dhuftaan sarta Pentagon dabcan waa wax hore loo baarandegay oo khidadeeda la dejiyay waxaa soo baxay xogo cusub oo ah in rag casaakiirta Mareykanka ka mid ah ay diyaarad daba garaaceen ama afduubteen iyagoo aan amar ka qaadan wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka iyadoo ay soo noqotay in sirdoonka Faransiisku ay u gudbiyeen sirdoonka CIA-da in Osama bin Laden inuu isbitaal Mareykana ee Dubai ku yaala uu aaday 2 bilood ka hor inta aanu qaraxu dhicin waxay noqonaysaa xilligii Osama tagay July 19 2001 oo waxaaba siyaartay ama booqday sirdoon wakaaladda CIA-da ka tirsan kaasoo dhacdadaas kadib Washington looga yeeray macluumaadkan oo jira ayuu Mareykanka iska indhatiray Osama ayuuna dusha ka saaray dhacdadii dhacday 24 Julaayo isla sanadkaas ee 2001 waxaa dhacday in nin Yuhuudi ah laguna magacaabo Larry Silverstein inuu kireystay burji ka mid ah labadaas dabaq muddo 99 sano ah isagoo lacagta ay ku heshiiyeen muddadaas kirada ay ahayd 3.5 milyan oo dollarka Mareykanka una dhiibaya lacagtaas maalinkuu qaraxu dhaco dabcan horaa looga baaraantagay iyadoo qiimahaasu laba laambayo inta uu qarax iyo khasaaro u bato waa uu waday Silverstein inuu kirada bixinayay kadib weeraradii daarihii mataanaha 6 Agoosto waxaa meesha laga saaray aydii dambaarista u tababarnay oo urinaysay raadkii qaraxa waxaana sidoo kale la kala diray ilaaladii meesha joogay 10 Agoosto 2001 waxay u qumeen mas'uuliyiin dhismaha Pentagon ka tirsan in iska baajiyaan maalinkii 11aad ee Luulyo iyadoo maalinka ka horeeyay ee ahaa maalinkii 10aad nin lagu magacaabo Wiley Barwan ee muxaafadiinta San Francisco ku nool ka mid ah ugu baaqay raggaas ee tagayay maalinka 11aad inay joogaan oo baaqdaan waayo raggaas waxa uu faray inay kulan leeyihiin cidna kama bixin sarta Pentagon
oo daaraha mataanaha middood ah. intaas kadib waxaa soo baxday urmaadada shidaalka ee loo isticmaalo sawaariikhda iyo gantaalaha, loomana isticmaalo maaddadaas in diyaaradda shidaal looga dhigo. ma dubin labada birji, balse waxaa dumay sarta ganacsiga qaybtiisa lambar 7 kaasoo ay yaaleen xogo ay CIA-da iyo wakaalada isgaarsiin ay lahaayeen. saacado kadib dhacdadaas waxaa caddaaday in yuhuudiga Selfristein kaasoo kiraystay qaybaha kale ee sarta waxaa hadlay kuwii qarax ka badbaaday iyagoo ka yaboohiyey in qaraxu uu gudaha ka dhacay, balse kuwii dhacdada baarayay ayaa iska jaahil yeelay. waxaa meeshii soo gaaray ciidankii dabdamiska. waxay awoodeen inay dabka ka damiyaan dabaqa 78aad oo ah dabaqii ay diyaaraddu ku dul dhacday. waxay ku tilmaameen raggii dabdamiyaasha ahaa in qaraxu uu ahaa howlgal la qorsheeyey. haddaba mawduucan abaartiisu waa Usaama bin Laden, allah u naxariistay, miyuu ka dambeeyey qaraxii sarihii mataanaha? waxay ku eedaysay Washington Usaama bin Laden inuu ka dambeeyey qaraxa. haddaba maxay awoodi weyday mandimadda kontaroolka diyaaradaha inay ogaato inay diyaarad maqan tahay? waxaa kaloo meesha joogay 5 Israa'iiliyiin ah oo sawirayay burjiga goortii dhacdadu ay socotay iyagoo qosqoslayay, waana la xiray raggaas waxayna xabsiga ku jireen 72 saac. kadibna waa la soo daayey. waxay ka dalbatay Washington ururka Taliban inay u soo dhiibto Usaama iyagoo ku eedaynaya inuu weerarkaas ka dambeeyey. way diiday Taliban inay Usaama u soo dhiibto. waxay soo bandhigtay xukuumadda Washington muuqaal ay leedahay waa Usaama oo sheeganaya inuu qarax ka dambeeyey, balse shakhsiga ka dhex hadlayay ma uusan ahayn Usaama, xataa ma uu shabahayn muuqaalka. markii si xeer loo sii baarayna waxaa la ogaaday in shakhsiga muuqaalka dhex hadlay uu marnaa farkashi daab ka samaysan, taasoo shareecadu xaaraantinimaysay. Usaamana uu ahaa nin diinta aad ugu adag. Usaama gacantiisa midig ayuu wax ku qori jiray, kuna garan ogaayeen raggii yaqaanay muuqaalka. qofkii lagu arkayna gacantiisa bidix ayuu wax ku qorayay, iyadoo ay 75 professor oo Maraykana ay ku sheegay inay tahay dhacdadaasi howlgal gudaha laga fuliyey, kana mid yahay professoradaas Noam Chomsky oo Al Jazeera ayaa 5 sano kadib soo bandhigtay muuqaal ay ku leeyihiin Usaama oo sheegtay qaraxaas. waxaas ma wax caqliga galaa in 5 sano kadib muuqaal la soo bandhigo? adigu fakar, Usaama oo buuro difaac kaga jira miyaa labadaas sar ee ganacsiga iyo Pentagon isla qarxin kara? diyaaradna inta uu afduubto sarta Pentagon ku dhufan kara? sababta uu Maraykan ficilka u kacay ayaa ah marmarsiyo ugu duulo Liibiya, Ciraaq iyo Iiraan oo mustaqbalka Usaamana uu u dilo marmarsiyana uga dhigto inuu la dagaalamayo argagixisada. waa intaas jawaabtu. insha Allah ilaa aan ka soo xogtaydan ayaan description ka soo dhigaya. wassalaamu calaykum.